waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan. Maanta waxaynu awoodda saari doonaa ama aynu ka hadli doonaa IELTS listening ama waa maxay IELTS-ka listeningkiisa ama imtixaankan saa loo gelayaa listeningka. Waxaynu dul istaagi doonaa question typeska ama noocyada questionska ku imanaya. Waxaynu dul istaagi doonaa sectionska uu ka kooban yahay imtixaanku. Sidoo kale waxaynu dul istaagi doonaa sidee markska loo bixiyaa kala duwan. Waxaas oo ku dhan baynu wada dul istaagi doonaa insha Allah. Waxaynu ka hadli doonaa horta imtixaankan gebigiisu listeningku hal chance baad maqlaysaa, yacni hal mar baad maqli doontaa codka. Codkii ma la shiday, su-aalihii ma ka jawaabaysaa. Intaa practice-ka aad sii sameynaysay aanad imtixaanka tooska u gelin, waxaad samayn karaysaa inaad ma garanaysaa aad dhowr jeer ku ceshato. laakiin maanta examination-ka aad joogto exam center-ka aad joogto mar keliyaata ayuunbaad codka maqlaysaa. igu soo celi sectionkaas way dhaafay ma jirto. marka keliyaata inaad ka faa'iidaysato oo si fiican u dhegeysto oo su-aalaha ka jawaabto weeyaan. 4 section buu imtixaanka ka kooban yahay, 4 qaybood buu ka kooban yahay. section kastana waynu dul istaagi doonaa iyo su-aalaha noocyada ku yimaada, su-aalaha kala duwan. Wuxuu ka kooban yahay imtixaanku 40 questions. 40 question, 40 section, 10 su-aaloodba section bay noqonayaan. section 1 oo kale 10 su-aalood buu ka kooban yahay, section 2 oo kale 10 su-aalood, ilaa section 4 oo 10 su-aalood isaga laftarkiisu. Marka 40 question buu ka kooban yahay. Imtixaankan waxaad haystaa 30 minutes of active listening. Active listening-ka waad garanaysaa baan filayaa. Iyo passive listening-ku. Active listening-ku waa markaad soo jeedid si fiican waxa u dhegeysanayso. Passive listening-kuna waa sida adigoo wax kala qabanaya ama buuq qoraya oo dhinac ka dhegeysanaya hees oo kale. Yacnihii toos uma dhegeysanaysid laakiin passive listening weeyaan. laakiin kan waxa weeyaan active listening oo qofku marka uu hadlayo codka uu ku hadlayo baad dhegeysanaysaa. 30 minutes waa inaad dhegeystaa codka oo su'aalaha ka jawaabtaa. waxaad haystaa 10 minutes si aad jawaabahaaga answer sheet-ka ugu wareejiso. yacni waxaa lagu siinayaa 2 waraaqood, mid waraaq aad kaga shaqeynayso weeyaan, midna waa answer sheet-kaaga oo mid aad ku wareejin doonto hadhow oo page keliya taa. marka answer-iskiin baad xaggan ku wareejinaysaa. marka taas waxaa lagu siinayaa 10 minutes ood ku wareejiso answer sheet-ka. sidoo kale waxaad haystaa 2 minutes haddii aad gelayso computer basic. kaas waxa weeyaan paper basic-ka markuu yahay ama waraaq markaad ku gelayso. laakiin computer basic-ku 2 minutes baa haystaa. marka waxa weeyaan markaad gelayso imtixaanka waa inaad isla position-ka aad ku buuxisaa si aanu waqtigu kaaga dhicin ood waqtiga u ilaashato. marka sectionska imtixaankan oo anigii sidan hore usoo sheegnay 4 section buu ka kooban yahay. section 1 oo kale waa conversation between 2 people. 2 qof baa wada hadlaya. marka su-aalo yaro information based ama general subject matter bay ka wada hadlayaan. tusaale ahaan oo kale qof baa kiraysanaya baa gaari oo kale. marka qofkan kale weydiinaya detailskiisa oo kale, magacaaga, numberkaaga, addresskaaga, waxyaabahaas oo kale. ama booking hotel baa loo booking garaynaya. marka magaca iyo addresska iyo numberka iyo emailka waxyaabaha ayaa laga qori doonaa. marka waxyaabaha laga qorayo ayaa lagu leeyahay adigu waa inaad aad waraaqda kaga jawaabtaa iyo qortaa adigu intaad maqasho aad qortaa. marka section 1 oo kale maxay ka kooban tahay baan niri conversation between 2 people. 2 qof baa wada hadlaya. qaybtan waa qaybta ugu fudud exam-ka maan isleeyahay. section 2 oo kale waxa weeyaan monologue ama qof kaliyaata hadlaya. qofka kaliyaata wuxuu ka hadlayaa general subject matter, waxyaaba iska general ka hadlaya. tusaale ahaan oo kale qof kale ayuu siinayaaba directionska moolkaas. qof aa weydiinaya halkuu moolkani ku yaalaa, then wuxuu ka oranayaa midig u leexo, bidix, toos ka mar, halkaa tag. badanka maapku halka sectionka buu ku imaadaa ma garanaysaa, sectionada kalena ku imaadaa. laakiin qofkan hadlaya wuxuu qof direction buu qof siinayaa ama wax buu tilmaamayaa ama wax buu sheegayaa. marka monologue buu noqonayaa. monologue waxa weeyaan qof kaliya hadlaya. marka section 2 waa sidaa. section 3 oo kale wuxuu ka kooban yahay ama 3 qof wada hadlaya ama ilaa 4 qof. educational context bay ka wada hadlayaan.
waxay tusaale ahaan oo kale macalin iyo laba arday oo kale ayaa waxay discuss gareynayaan course optionska ama tusaale ahaan oo kale waxay discuss gareynayaan examkii ay galeen oo kale bay ka wareysanayaan macalinka oo kale. Marka badanku waa educational context ayuu section 3 guna noqonayaa oo 4 qof oo wada hadlaya ama 3 qof oo wada hadlaya kale. Section 4 oo kale waa monologue ama qof kaliya ta hadlaya ama lecture buu ka hadlaya. Lecture macalin baa hadlaya oo wuxuu ka hadlayaa topic tusaale ahaan wuxuu ka sheekeynayaa abuse processka ku yimaadeenba wuxuu oranayaa biyo waxay kasoo bilaabmeen bartaa favor bay soo noqdeen gas bay noqdeen then biyo isku bedeleen wax noocaas kala. Marka badanka academic topics ku focuskiisu saaraya waa imka tusaale example halkan niri university lecture on dinosaurs waa example lecture dinosaur ka hadlayo kale badanka marka qof kaliya to hadlayo weeyaan ama lecture jeedinayo kale. Question typeska 6 question types ayaan ku hadli doonaa ama 6 su'aalood oo kala duwan oo examkan kugu iman karaya. Marka waxa kamid ah imka tusaale ahaan kale table baa lagu siinayaa buuxinaysaa ama summary ama note ama form badanka oo flow chart completion badanka su'aalahan waa isku qaab looga shaqeeyaa waxaana la buuxinayaa un missing information meesha kugu qoran imka tusaale ahaan kale tab section 1 oo kale bad buuxinaysaa with no more than 3 words badanka waxa lagu siinayaa 3 words ama 2 words iyo number bad ku buuxinaysaa ama 2 words iyo number. Marka imka example kan kala inoo tusaale complete the notes below kan waa notes soo maaha waxa lagu weydiiyay write no more than 3 words or a number ama number bad la socda ama 3 words kaliya tu noqonaya ama number kaliya tu noqonaya. Marka kan oo kale ayaa loo odhanayaa ma garanaysaa buuxitaankiyo kale. Marka waxaad sameynaysaa su'aalo kasta ama question type kasta waxaanu gaar u dul istaagi doonaa video gaara. Marka section kan su'aashan type kan kale sida looga shaqeynayo sida ma garanaysaa aad focus ugu saar lahayd inaad dibca ugu fiican ka qaadato video gaar ayaan dul istaagi doonaa. Laakiin imika waxaan ka hadlaynaa overview-ga iyo question typeska kala duwan aynu ku arki karno halkan. Question type-ka labaad wuxuu noqonayaa multiple choice-ka oo kale imika waxaa lagu siinayaa options su'aal baa lagu siinayaa options kala duwan 4 option baa lagu siinayaa. Marka processka isticmaali karaysa waxa weeyaan process of elimination ama inaad ka saarto ma garanaysaa su'aalaha jawaabaha khaldan oo kale aad ka saarto. Imika su'aashaas oo kale how does busy travel plan to expand the Beijing holidays for example labaaba khalad noqdayba labadii khaladka noqdeed caadiga oo arkayso waad ka saaraysaa ta saxda maxay noqonaysaa sidaas ma noqonaysaa. Yacni process of elimination kaas aad u isticmaalayso iyo sidaad ma garanaysaa question type kan aad dhibca fiican uga keeni lahayd video gaar in ku dul istaagi doonaa insha Allah. Question type 3 ga waxa weeyaan plan waxa lagu siinayaa plan ama map ama diagram ayaa lagu siinayaa. Marka diagram-ka ayaad buuxinaysaa ayood markaad cod ka maqasho ayaad diagram-ka ku buuxinaysaa. Tusaale ahaan wuxuu ka oranayaa map-kan oo kale ka sheekeynayaa wuxuu ku kala sheegayaa imka tusaale ahaan kale sidaas lagu weydiinayaa waa maxay sidaas oo kale maxaa ku yaala bridge bay noqon kartaa. Marka uu hadlayaa isagu speaker ku hadlayaa marka adiga waxa ku taala kaliya inaad space-ka ma garanaysaa halka eedaas oo kale buuxiso space-ka banaan aad buuxiso aad ku buuxiso ma garanaysaa waxaad ka maqashay speaker-ka then hadhow ka bacdi aad ma garanaysaa answer sheet-ka ku wareejiso. Marka bal kun map-ku ama question type-ka noocan ayaa ugu yar adag laakiin waxaad isticmaalaysaa badanka visual aid baad isticmaalaysaa. Visual aid waa maxay halka maxaa ku yaala farmyard main baadkaas soo maraysaa buu kornaya. Marka waxaad isticmaalaysaa visualiskan meesha ama sawiraanta meesha ku yaala baa ku caawinaya. Question type-kan sidoo kale waynu video gaar in ku dul istaagi doonaa oo sidaad ugu shaqeyn lahayd sad ma garanaysaa aad dhibca fiican uga keeni lahayd. Short answer ko kale ama question type-kan oo kale waxa laga rabaa inaad answer-kiisa aad qorto. Awal answer-kiisa qorayay laakiin kuwan imka su'aal toos ah lagu weydiinaya. For example imka tan oo kale
What two factors can make social contact in foreign country difficult? For example, oo kale social contact maxaa ka dhigi karaya difficult markaad joogto foreign country. Tusaale ahaan oo kale marka su-aasha tooska lagu weydiiyey waa in answerskeyga aad halkaa answerkeyga ku qortaa. Answerkeyga waa inaan ka badnaan no more than 3 words ama number keliyaad waa in noqdaa. Marka maxaad samaynaysaa inaad su-aashan toos uga jawaabto adigoo cod ka dhegeysanaya ama speaker ka dhegeysanaya. Which types of community group does the speaker give us examples of? Theater. Su-aasha markaa waxaad uga jawaabaysaa waxaad buuxinaysaa inkastoo isku yara dhow yihiin completionkii ama magaranaysaa tii ugu horeysay aynu soo marnay, haddana tan waxay kaga duwan tahay waa su-aal directi weeyaan. Tan oo kale waxa weeyaan sentence completion ama magaranaysaa meelaha banaan buuxi. Tusaale ahaan kale waxaa lagu siinayaa sentencekaas oo kale lagu siinayaa, then waxaa lagu odhanayaa write one word only. Marka contextkiina waa tan lagu siiyo, sentencekii oo dhammaystiran baa lagu siiyo. Marka keliya waxa kaa dhimanuun wordka bartaa galaya unbaa kaa dhimanuun. Marka wordkaana speakerku markuu hadlo baad kala soo dhex baxaysaa. Saad ugala soo dhex baxaysana waynu dul istaagi doonaa insha Allah. Question type 6 ka matchingka ah, matchingko waxa lagu siinayaa ereyay imka tables aan kala ereyay ku jiraan. Tablekaas aad soo qaadanaysaa waxaad kii saxda ah imka snack bar oo kala halkan ku wacanba. Snack bar baba halkan ku saxanba. Codka adigu iskaga qormaysid laakiin speakerku markuu hadlo speakerku wuxuu ilaaho baa saxideen noqonaya. Marka speakerku wuxuu ilaaha ku buuxinaysaa meesha. waxaynu halkan ka yara hadli doonaa scoringka, systemka scoringka listeningka loo sameeyo kale IELTS-ku ay u sameeyaan ama Cambridge ay u sameysay. Tusaale ahaan oo kale waxaad saxdayba 32 ilaa 31 su'aalood. Marka maxaad noqonaysaa waxaad keenaysaa band 7. haddii aad saxdo imika 12 ilaa 10 waa band 4, 16 ilaa 17 waa band 5. marka su'aalaha intaad saxdo bay ku xirantahay banka intaad keento. banka intaad keentaana waxay ku xirantahay banka laga rabo. imika tusaale kale badanka jaamacadaha caadiga waxa lagu leeyahay band 6 overall waa inaad keentaa overall. marka band 6 aad u keento waa inaad kana keentaa, waa inaad mid kasta ugu yaraan 6 aad keentaa. marka listening ko kale aad 6 keentaa 6 inaad keentana waa maxay? waa inaad 25 su'aalood saxdaa aad inta aad khalataa ma garanaysaa inta kale, ama 23 su'aalood saxdaa aad inta kale ka khaldayin. haddii aad doonayso 7.5 inta keento waa inaad 32 ama 4 ilaa 4 aad saxdaa su'aalood oo ay ka khalad badan 6 su'aalood. sidaas oo kale baa lagu qiimeynaya. markaad guriga joogto oo kale aad imtixaanka iska gelgelayso examkaadu aad iska qaadayso waxaad sameynaysaa in haddii aad 35 su'aalood saxdo oo kale band 8 baad qaadanaysaa. haddaad 37 su'aalood kale 8.5, haddaad 39 saxdo 9 baad tahay. marka saasaad isku qiimeyn doontaa insha Allah. Overall strategy-ka la isticmaalayo examkan waxaynu question type kasta gaar baynu dul istaagi doonaa. waxaynu ka hadli doonaa strategies-ka u isticmaali karto question type kasta. laakiin overall strategies-ka isticmaali karta wax kamid ah su'aasha akhri intaanay soo gaarin. tusaale ahaan kale informationku 20 second baad haystaa baan filaya 20 second oo 25 second. marka inta aanay soo gaarin su'aasha waxa lagu siinayaa time yar oo gaaban, laga yaabaa inay 20 second tahay iyo 25 second. su'aalaha sii akhri ama informationka meesha kugu yaala. title-ko kale instruction-ko kale aad iskaga akhri. instructions-ko kale mararka qaarkood iyadoo lagu yiraahdo one word baad iskaga buuxin kartaa 5 erey oo kale. marka taas su'aashu khalad bay noqonaysaa. marka aan mar labaad ku celiyo, read the questions and read the information. akhri su'aalaha inta aan la soo gaarin codka aan la soo gaarin aanad ma garanaysaa bilaabinka jawaabitaanka su'aalaha. iska akhri questions-ka lagu siiyey. informationka meesha kugu yaalaan iska akhri. instruction-ka sidoo kale iska akhri. marka underline keywords, underline garee keywords-ka meesha lagu siiyey. tusaale ahaan kale keywords-ka waynu eegi doonaa. keywords-ku waa ereyada ku fududeynaya inaad su'aashan aad fahanto ama aad ma garanaysaa aad uga shaqeyn karto sida dhibka yar leh. prepare synonyms. synonyms-ka oo kale question words-ka, direction words-ka, kuwan oo kalena gaar baynu dul istaagi doonaa insha Allah.
sidoo kale waa inaad isticmaashaa active listening-kaaga. active listening waa maxay? waa inaanad inta aad magaranaysaa examku socdo aanad wax kale aanad ka fikirin. yacni haddaad marka yara baxdo aad maskaxdaada wax kale aad ka fikirto wax ku dhaafay 2 su'aalo ama 3 su'aalo. marka tan inkastoo aad u adag tahay tan focus-kaaga waa inay noqotaa markaad imtixaankan aad galayso. use your time wisely. waqtigaagana si fiican uga faa'iidayso. waxaan eegi doonaa bal sidaad waqtigaaga uga faa'iidaysan lahayd su'aalahan kala duwan si aad uga jawaabi lahayd waqtiga ugu yar. bal insha Allah intaas aynu dul istaagi doonaa fiidiyoda soo socota. If you have any question, comment below. insha Allah comment-ka noogu reeb wixii questions aad rabto exam-kan si aad u diyaarinayso. bal qaabkan garanaysaa ee ugu wacan aan usoo gudbin karno. haddaad su'aalo qabtana insha Allah nala wadaag. sidoo kale subscribe-ta noo saar maadaama waxaan bilaash ku yahay oo aanan wax alaali aan lacag aanan ka qaadin. nagu caawi subscribe-ta, share samee oo magaranaysa fiidiyoga cidii u baahan ama ay la doonaysa inay diyaariso la wadaag. insha Allah tacaala waxaan ku rajeynayaa guul iyo gobonimo khayr badan ma ku rajeynaya insha Allah.